السلام عليكم دعوة فضلا هدي أنا نقول عصبتها هي لا من channel إن أصارت سبسكرايب beri waxaa jiri jiray gabadhan yar oo lagu magacaabi jiray Tara waxay la nooleed qoyskeeda aabeed waxa uu ahaa nin markaasi iska xamaaliya waxaanu ku dadaali jiray markasta gabadhiisa sidii uu wax u bari lahaa balse Tara waxay ahayd gabadh yar oo aan jeclayn waxbarashada waxayna aad iyo aad u jecleed inay barato sida loo ciyaaro ama base qobka ciyaarka waxay iman jirtay halkan oo lagu barto ciyaarta iyadoo markaasi ka daawin jirtay meel yar oo duleesha hooyadeed ayaa ogaatay arrinkii waayna kasoo kaxaysay iyadoo markaasi guriga keentay markii ay guriga keentayna aad iyo aad ayay u canaanatay waxayna u sheegtay in ayna maalin dambe halkaa tegin balse Tara waxa ay tiri hooyaan waxaan rabaa in aan barto ciyaarta oo aan noqdo dhaansarad markaasi weyn oo adduunyada dhan laga aqoonsan yahay balse hooyadeed waxay ku tiri mar dambe kaama maqli karo hadalladan aad ku hadlaysid aabaha haddii kaa maqlana uu kaa xumaan doonaa maadaama uu markasta adiga sidii uu wax kuu bari lahaa ku hawlan yahay Tara way xanaaqday wayna iska aamustay iyadoo ooyeysa halkaasi waxa yimiday aabeed waxaanu ku yiri gabadhaydii aan jeclaayay maxaa ku helay maanta wajigaaga murug ayaa ka muuqata balse Tara waxay u sheegtay arrinkii oo waxa ay ku tiri aaba anigu waxaan rabaa in aan barto sida loo ciyaaro balse aabeed waxa uu ku yiri gabadhaydii waxaan rabaa in aan ku arko markii aad weynaatay adiga oo wax bartay isla markaasina noqday naag mutacallimada oo heer ka gaadhay waxbarashadeeda aniguna markasta waxaan jeclahay sidii aan wax ku bari lahaa xaalad kastana u wajahaa sidii adigu heer u gaari lahayd balse gabadhii yareed markay aragtay waalidkeedu sida ay u rabaan inay wax barato waxa ay samaysay inay maskaxdeeda dejiso ra'yigeediina bedesho riyadaasna iska ilowdo waxayna ku tiri waalidiinteedii waa ballan waan baranayaa ayay ku tiri waxbarashada oo waan iska daynayaa riyadan Tara maalinkaasi wixii ka dambeeyay waxay ahayd gabadh yar oo u dadaashay waxbarashada waxayna sidoo kale u dhaga nugleed waalidiinteeda sanad ka bacdi waxay noqotay Tara gabadh markaasi weynaatay waxayna ahayd gabadh markaasi ka soo qalin jabisay jaamacadda balse waalidiinteeda ayaa arrinkaasi markay ogaadeen waxa u rumowday riyadoodii xilligan oo kale waxa ay ku hawlanay Tara in ay raadiso shaqo ay markaasi ka shaqeyso waxayna wacday shirkadaha waaweyn kamida iyada oo ka dalbanaysa shaqo balse waxay u sheegeen inay beritoole soo diyaar garowdo si ay markaasi uga qaadaan interview waxay u timiday Tara waalidiinteedii iyadoo markaasi wargelinaysa in laga qaadi doono beritoole tijaabadii ugu horeysay waxayna u sheegaysaa inay hadda kadib ayna u baahan doonin waalidiinteedu inay u soo xamaalaan hadda kadibna iyadu la wareegi doonto mas'uuliyadda guriga isla markaasina iyadu u soo shaqeyn doonto waalidiinteedii hadalkaasi marka ay maqleen waa ay qiiroodeen indhahoodiina ilma ayaa ka timiday waa ayna ku farxeen hadaladii gabadhoodii markaasi ka soo yeedhay iyagoo markaasi labadoodiiba habsiiyey gabadhoodii yarayd Tara waxay u sheegtay aabaheed oo ay ku tiri aaba beritoole maadaama oo aan tagayo shaqada maalinkii ugu horeysay ay tahay waxaan rabaa dhar qurux badan oo aan xidho aniguna ma haysto dhar qurux badan waxaan haystaa dharkan aan xidhanahay oo kaliya oo aan sanado badan xidhnaa aabaheed ayaa ku yiri aaba ka walwalin arrinkaas aniga ayaa meeshan kaaga keenaba kuu keenaya waxa uu u yimiday oday markaasi ay daris ahaayeen waxa uu ku yiri waxaan rabaa inaad ideymiso lacag amaaha waxa uu ugu jawaabay ninkii ay dariska ahaayeen waan ku deyminayaa lacagtaasi haddii aad si dhaqsi ah igu soo celinaysid balse Tara aabaheed waxa uu ugu jawaabay walaal si dhaqsi ah ayaan kuugu soo celin doonaa haddii aad lacagtaasi i deymisid ninkiina waxa uu ku yiri waan ku siinayaa lacagtiina sidii ayaa lagu siiyay waa uuna ka soo baxay gurigii oo waxa uu tagay dukaamada lagu iibiyay dharka isagoo gabadhiisii u soo iibiyay dhar aad iyo aad u qurux badan waxayna ahayd gabadhiisu mid dharkii soo xidhatay iyadoo faraxsan waxayna u soo dhaqaaqday dhankaas iyo dadkii ay ballanta la lahayd ee markaasi shaqada siinayay balse wadada marka ay socotay waxa ay maqashay dhawaq ka soo baxaya galaaskii lagu dhigi jiray ciyaarta halkaas ayay dhageysatay balse codka ka soo baxaya ayaa waxa uu ahaa macallinkii bari jiray ciyaarta ardaydan ayaa waxa uu lahaa ayaa maanta nooga qayb geli doona tartanka aan qabanayna gabadhii nala shaqeyn jirtay waa ay xanuunsan tahay iyada ayaa soo gashay waxayna macallinkii ku tiri aniga ayaa ka qayb gelaya dadkii oo dhanna waa ay ku qosqosleen iyaga oo markaasi la yaabay waxa ay ku tiri mar labaad waan idin baryayaa aniga mar kaliya bal i tijaabiya sida aan idinku ciyaaro hal jaanis ama hal fursad uun isiiya waxa uu ku yiri macallinkii waayahay waan ku siinaynaa oo waan ku tijaabinaynaa sida aad u ciyaaraysid waa ayna soo gashay iyadoo markaasi
tustay sidii ay u ciyaaraysay. Dadkii oo dhan afka ayay qabsadeen, waa ayna la yaabeen sida ay u ciyaartay. Macallinkii waxa uu weydiiyey halka ay jaaskan iyo ciyaartan ay ku soo baratay. Waxa ayna ugu jawaabtay, waxaan ahaa gabadh jecel ilaa yaraanteedii in ay noqoto markaasi dadka ciyaara ama dhaansi gareeya, balse fursad uma aanan helin markaasi ku soo bandhigo hibadayda. Hadda ayaan jaanis u helay, waxaanan niyadda ka jeclaa inaan weligayba aan noqdo gabadh adduunkoo dhan laga yaqaano, isla markaasna ciyaarta gabadha u taqaana aan markaasi noqdo. Macallinkii ayaa ku yidhi, sideed u aragtaa haddii aad tartanka aan maanta qabanayna nooga qayb gashid? Balse aad ayay u faraxday. Waxa u soo dhacay taleefan markaasi uga soo dhacay dadkii ay la ballansanayd ee shaqada imtixaan ka qaadayay. Waxa ay ku tidhi, waan soo socdaa oo waan imanayaa ayay ku tidhi. balse been ayay ahayd oo dhankaasi umaba soconba. Dhan waxa ay xasuusanaysaa riyadeedii yaraantii in ay rumayso, dhanna waxa ay xasuusanaysaa hooyadeedii aabaheed markasta maadaama ay jeclaayeen waxbarashada in ay heer ka gaadho. Iyada oo fikiraysa oo yaaban, macallinkii ayaa u yimiday. Waxa uuna ku yidhi, gabadhay, waxaa la gaadhay waqtigii aad tartanka ka qayb qaadan lahayd. Waa ayna soo raacday. Halkaasina waxay yimaadeen stagekii markaasi ay ku guuleysan lahayd, iyadoo noqotay guuleystaha tartanka. Waxaana laga soo daayay TV-yada iyadoo lala yaaban yahay gabadhan sida ay u soo bandhigtay ciyaaraha. Waxay timiday gurigoodii. Hooyadeedii aabaheed waxay ahaayeen kuwo markaasi sugaya, waxayna ka wareysteen shaqadeedii maanta sida ay u soo dhacday. balse iyadu waxay ku jawaabtay ma aysan haynin, mana ay doonin inay hooyadeedii aabaheed been u sheegto, mana aysan rabin inay hooyadeedii aabaheed niyadda ka disho, balse waxay ku go'aansatay inay runta u sheegto. Waxayna u sheegtay hooyadeedii aabaheed arrinkii oo waxay tiri, maba teginba interviewgii shaqada aan ku heli lahaa, ee waxaan tegay meeshii aan ilaa yaraantaydii jeclaa, oon xaggaas ayaan tartan ka soo qayb galay, waxaana noqday guuleyste. hooyadeedii aabaheed aad iyo aad ayay uga xumaadeen. Aabaheedna waa uba iska ooyeyba, waxa uuna ka xumaaday arrinka ay gabadhiisii samaysay. Waa uuna iskaga baxay gurigii. Bannaanka markii uu u baxay isaga oo xanaaqsan, waxa uu la kulmay odayaal saaxiibadii. Waxayna ku yidhaahdeen, war maadan ogeyn gabadhaadii halka ay marayso? Waxaaba laga soo daayay TV-yada. waxayna noqotay waddankan oo dhan qofka ugu yaqaana ciyaarta, isla markaasna waxay noqotay gabadhaadii daansarada markaasi adduun weynaha oo dhan laga yaqaano. Waxayna qaaday koobkii. Waa uu soo cararay. waxa uuna yimiday gurigiisii. waxa uuna u sheegay xaaskiisii arrinkii. isagoo la farxay gabadhiisii ayay habsiiyeen. isla markaasna waxa ay gabadhii aragtay dad badan oo u hambalyeynaya sida ay markaasi u ciyaartay. waxayna noqotay gabadh markaasi adduunka oo dhan laga yaqaano, cid kastana soo wacato, shirkado waaweyn. waxayna noqotay gabadh markaasi maalqabeena.